muwaadin British ah ayaa sheegay in lagu jirdilay Soomaaliya oo ay su'aalo ku weydiinayeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka waxaana sidaasi wariyay wargeyska The Guardian ee ka soo baxan dalkaasi Britain. ninkan oo 45 jir ah kana soo jeeda magaalada London ayaa sheegay in gacanta mas'uuliyiinta Soomaaliya uu ku asiibay ficilo ay ka mid yihiin inay madaxa dhar u geliyaan u adeegsadaan aaladda qofka dareenka tirta madaxana ay u geliyaan biyo si looga dhaadhiciyo in uu la shaqeeyo CIA-da Mareykanka. David Taylor oo magaciisa saxda ah la bedelay kadib codsi ka yimid qoyskiisa ayaa waxa uu muddo 2 sano ah ku xiran yahay Soomaaliya iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin. David ayaa cabsi ka qaba in haddii aysan dawladda UK soo faragelin xaaladiisa uu wajahayo dil toogasho oo ay ku xukunto maxkamadda militariga ee Soomaaliya ama loo dhoofiyo waddanka Mareykanka. qoyskiisa oo ku sugan London ayaa sheegay inay ka qalbi jabeen xaaladiisa waxayna xafiiska arrimaha dibadda UK ku eedeeyeen inuu ka gaabiyay arrintiisa. warqad sharci ah oo sharaxaysa xaaladda David ayaa toddobaadkii tagay loo gudbiyay xafiiska arrimaha dibadda waxaana lagu sheegay inay haystaan ilaa Arbacada soo socota si ay uga jawaabaan fashilka weli taagan ee ay ku wajaheen arrintaasi. waraaqadan oo ka koobneed 9 bog ayaa lagu sheegay in sirdoonka Mareykanka ay aad u daneynayaan arrinta David waxaana lagu sheegay waraaqadan in 30 Juun 2 sarkaal oo Mareykan ah oo isku sheegay inay ka tirsan yihiin FBI-da Mareykanka ay su'aalo weydiiyeen David kuna weydiiyeen magaalada Muqdisho. Dokumentiyada ayaa lagu yiri waxa ay weydiiyeen inuu jeclaan lahaa inuu ku noolaado Mareykanka waxa ay tusiyeen sawirada shakhsiyaad kala duwan oo ay weydiiyeen haddii uu garanayo. mid ka mid ah sawirada la tusiyay ayaa ahaa Mahdi Xaashi oo ah muwaadin British ah oo ka soo jeeda xaafadda Camden ee waqooyiga London kaasi oo sanadii 2012 si sir ah loogala baxay Djibouti looguna qaaday Mareykanka kadib su'aalo culus ay weydiiyeen CIA-da Mareykanka. Mahdi ayaa waxaa loo xiray inuu taageerayay kooxda Al-Shabaab hase yeeshee waxaa la sii daayay sanad kadib. inkastoo aan wax sabab ah ama cadeemo ah laga siin sababta loo xiray haddana sawirada la tusiyay David ayaa muujinaya in CIA-da Mareykanka ay tuhmayso inuu xiriir la leeyahay kooxda Al-Shabaab. wiil uu dhalay David oo codsaday in aan la shaacin magaciisa ayaa yiri aabahay waxa lagu hilmaamay xabsi dal shisheeye isagoo oo ku sugan xaalad halis ah wax dacwad ahna aan lagu soo oogin. waa muwaadin British ah wax taageero ahna kama uusan helin dalkiisa. wuxuu intaasi ku daray waxaan xafiiska arrimaha dibadda wacayay maalin kasta si aan uga baryo in ay sameeyaan wax kastoo ay karaan si loo soo daayo aabahay oo dalkiisu dib ugu soo laabto. xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa ka warhayay xariga David tan iyo bishii Abriil sanadii 2019 iyo tuhnada ku saabsan jirdilkiisa tan iyo bishii December ee 2020 markii ay xaaskiisa oo ku sugan London ay la xiriirtay. David Taylor ayaa Soomaaliya u guuray 2009 halkaasi uu deganaa hase yeeshee 13 Abriil 2019 ayaa la xiray kadib markii uu Yemen u aaday inuu soo cusbaanaysiisto baasaboorkiisa oo dhacay si uu London ugu laabto. waxaa 3 bilood kadib loo wareejiyay saldhig military waxaana sida waraaqada sharciga ah ku cad loo sheegay in qof ka tirsan CIA-da Mareykanka uu doonayo inuu arko qofkaasi ayaa isku sheegay John wuxuuna ku hadlayay lahjadda Mareykanka. 19 Sebtembar 2019 waxaa loo wareejiyay magaalada Muqdisho kadibna isagoo indhaha iyo gacmaha laga xiray ayaa loo qaaday magaalada Janaale. dabayaaqadii 2019 ayaa mar kale David waxaa loo soo wareejiyay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho oo la rumaysan yahay inuu hadda ku xiran yahay. dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda UK ilaa iyo hadda kama aanay hadlin arrinka David. sida oo kale wargeyska The Guardian oo jawaab ka codsaday CIA-da dalka Mareykanka ayaana weli helin wax jawaab ah.